Salaamu calaykum. Taariikhdu waa muraayada aan ugu fiirsano khaladaadkii shalay si aan u toosino kan bari. Waxaa jira quruumo badan oo taariikhdoodu ay ahayd mid mugdi ku daboolan, dagaalo, burbur, xasuuq iyo kala qaybsanaan. Laakiin qaran baa jira oo mugdigaasi ka gudbay, wuxuuna iftiimiyey dariiqa horumarka iyo dib u casriyeynta. Qarankaasina waa Deutschland ama Germany. Qarnigii 20aad, Jarmalku wuxuu maray xilli uu noqday halka ugu madow ee bini'aadamku abidgaaro, xilligii uu Naaziyadu xukunka hayeen, dagaalkii labaad ee dunida iyo xasuuqii Yahuudda. Laakiin isla qarnigaas wuxuu sidoo kale noqday tusaale laga barto samate bixin, dib u heshiin iyo horumar. Ummaddu waxay ogaatay qiimaha runta, muhiimadda cadaaladda iyo baahida ay u leeyihiin inay jiilasha cusub u reebaan xasuus togan. Maqaalkani wuxuu ku martigaadayaa safar xikmadaysan laga bilaabo qabiilooyinkii qadiimiga ahaa ee Jarmal ilaa maanta uu noqday hoggaan ka mid ah waddamada ugu ilbaxsan dunida. Waa sheeko ummad aan ka ararin taariikhdeeda, balse ka dhigtay xusuus togan, casharo muuqda iyo dhaxal lagu faano. Qaran aan aqoonin halkuu ka yimid ma garan karo halkuu u socdo. Ku soo dhowow taariikhda Jarmalka, mid hanuun leh, mid xikmad leh iyo mid rajo leh. Waa anigoo ah Maajid, waxaadna hadda nala joogtaa barnaamijka fahamka, meesha aan iskula eegno mowduucyo qoto dheer, si fudud, xikmad leh oo nolol wax ka bedela. Aan horay u sii gudubno mowduucayga maanta. Asalka ummadda Jarmalka, bulsho ka soo koraysay geedaha iyo qabiilooyinka. Jarmalku asal ahaan ma ahayn dal midaysan. Waxa uu ka koobnaa qabiilooyin kala duwan sida Goths, Saxons, Vandals iyo Franks, kuwaasoo ku noolaa meelaha maanta loo yaqaano Jarmal, Holland, Austria iyo qaybo ka mid ah Switzerland. Intii lagu jiray xilligii Roomaanka, dalkan Jarmalka lagu magacaabo waxaa lagu tilmaami jiray barbarians, laakiin ma ahayn dad wax magarata ah. Waxay lahaayeen nidaam beeleed, sharciyo, dagaalyahano iyo falsafad asal ah. Qabiil kasta oo hor ah waa tabta ugu horeysa ee qarniyo kadib qaran weyn ku dhasha. Boqortooyadii Quduska ahayd ee Roomaanka 962 ilaa 1806, markii boqor Otto uu helay taageeradii Faatikaanka, wuxuu dhisay boqortooyadii Quduska ahayd ee Roomaanka, Holy Roman Empire, taasoo ahayd isku darka Jarmalka, Austria, Czech iyo meelo kale oo badan oo Yurub ah. Jarmalku wuxuu noqday xarunta falsafadda Kiristaanka, halkuu ka kacay Martin Luther oo horseeday isbeddelka diinta, meel ay ka dhaleen ulmada sida Kant, Leibniz iyo Goethe. Ilbaxnimo jirta waa midda oggol in la isbeddelo. Runta si tartiib ah u fiirso maskaxda bulshada. Midowgii Jarmalka, qarnigii 19aad, waa halka ay Jarmalka maanta ka bilaabatay. Otto von Bismarck, wasiirkii weynaa ee Prussia, wuxuu mideeyay qabiilooyinkii iyo boqortooyooyinkii Jarmalka, wuxuuna abuuray Jarmalka cusub ee caalamka la yaabay. Waxaa lagu dhawaaqay midnimada Jarmalka 1871. Qaran midaysan wuxuu abuurmaa marka dadkiisu dhirtaan inay wada leeyihiin hanuunkii, rajadii iyo mustaqbalka. Dagaalkii koowaad ee dunida 1914 ilaa 1918, Jarmalka cusub wuxuu ahaa quwad weyn
balse waxay ku dhufatay dagaal weyn oo uu la galay Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka. guuldaro laga dhaxlay in lagu khasbo heshiiskii Versailles oo uu ahaa mid jilicsan ku noqonaya Jarmalka. dhul baa laga jaray, lacago baad ah baa lagu xukumay, waxaa laga hayuubiyey awood ciidan. tani waxay keentay niyad jab qaran, dadkii oo silcisan iyo qabyaalad siyaasadeed. Hitler iyo Naaziyada. dagaalkii labaad ee dunida 1939 ilaa 1945 Adolf Hitler, askari ka tirsanaa dagaalkii koowaad, ayaa ka dhaxlay dareenka adhada qaran. wuxuu dhisay xisbiga Naaziga, wuxuuna ballanqaaday sharaf, shaqo iyo awood. laakiin wuxuu bilaabay xasuuqii Yahuudda. in ka badan 6 milyan ayaa la dilay, dabsadayna dalal badan oo Yurub ah, bilaabayna dagaal weyn. laakiin ugu dambeyn Jarmalku wuu jabay. dadkuna waxay arkeen burbur aan weligood la iloobi karin. khalad garan ma aha oo keliya ficil xun, waa marka dadka aamuso marka cadaaladda la dilayo. Jarmalka kala qaybsan iyo derbigii Berlin 1949 ilaa 1989 markii dagaalkii dhammaaday, Jarmalka galbeed wuxuu noqday dimuqraadi, uu taageero Mareykanka. Jarmalka bari wuxuu galay gacanta Shuuciyada. magaalada Berlin ayaa derbi la kala jaray, mid uu ku jiro hurnimo, midna cadaadis. laakiin dadka ma aysan ogolaan kala qaybsanaanta. waxaa bilaabmay kacdoon, suugaan, heeso iyo halgan bulshada dhexdeeda ka dhashay. waddan aan hor ahayn waa qalbi kala go'an. jabintii derbiga Berlin iyo midowgii qaranka 1990 9 November 1989 derbigii Berlin waa la jabiyey. kumanaan Jarmal ayaa isugu yimid si ay u dabaaldegaan midnimada. maalintaasi waxay noqotay astaan dunida tusinaysa in dadku ay jabin karaan derbi kasta. bilow horumar dhaqaale, cilmiyeed iyo nabad. sanadkii 1990 Jarmalku dib ayuu isu mideeyay, waana markii uu si buuxda u bogsaday. derbiyada jirka ah waa la jabin karaa, laakiinse kuwa maskaxda iyo qulubta ku yaal waxay u baahan yihiin waxbarasho iyo daacadnimo. Jarmalka maanta ummad istahday, is-afisay, is-horumarisay. maanta Jarmalku waa dalka ugu hoggaan midowga Yurub, halka ugu horeysa waxbarashada, farsamada iyo tiknoolajiyada, meel lagu ixtiraamo xurriyadda hadalka, sinnaanta iyo sharciga. Jarmalku waa qaran u istaagay inuu khaladaadkiisii hore soho. waxay dhiseen xasuus taariikheed, madxafyo laga xasuusto Holocaust, barnaamijyo waxbarasho oo ka digaya nacaybka iyo xagjirnimada, siyaasad qaxooti u furfuran si ay u noqdaan dal fursad bixinaya. casharka taariikhda Jarmalka. taariikhda Jarmalka waxay baraysaa qof kasta oo Soomaaliyeed in qaran kasta uu soo mari karo jab, laakiin sidoo kale uu soo qaban karo. in runta la qirto ay ka qiimo badan tahay in been la isku difaaco. in midnimo, waxbarasho iyo cadaalad ay yihiin tiirarka quwad laga dhaxlo. ummad is-afisa, is-qirata oo is-hoggaamisa waxay dhalaysaa sharaf aan marna la waayin.